ku soo dhawaada qisadii jacayl ee la magac baxday ilmadii xaaska. maanta waxayna la socodsiin doonaa walaalkiin Siraaj Cumar wa Cabdillah. Nimco waa murugi qalbigeeda dhaamisay isla markaana niyad jabsan ayaa waxay tagtay gurigooda waliba waxay si toos ah u aaday Nimco qolkeeda iyadoo ilmeynaysa. Nimco waxay fuushay sariirteeda waliba waxay isku duubtay buste iyadoo aad u ooyeysa waxay kala kulantay qofka nolosheeda ay ku aamintay kuna kalsoonaatay nafsadeedana ay ku aamintay oo ah jacaylkeeda Cabdiqani. Nimco waxa fahantay walaasheed oo ay isku dhalasho xigaan oo loo magacaabo Degan waxayna ku garaacday albaabka Degan laakiin nasiib darro Nimco albaabka ma ay furin sababtoo ah Nimco ma aysan jeclayn in walaasheed Degan oo dhalashahaan iyada ku xigta si aanay u arag marxaladda jacayl ay ku jirto. Degan ayaa waxay mar kale isku dayday inay albaabka garaacdo. nasiib wanaag Nimco waa ay ka furtay albaabka Degan iyadoo indhaheeda ilin qulqulayso. Degan walaal Nimco maxaa ku helay maxaa jira yaa sidan ku galay iyo eriyo badan oo kale ayay kula hadashay walaasheed Nimco ayaa walaasheed uga warantay sida ay wax u dhaceen iyo marxaladda soo martay. Cabdiqani waa ay laftiisa soo wajahday xaalad adag kana wareeraya sirihiisa fakaday iyo khiyaamada daran ee uu kula kacay jacaylkiisa Nimco. Cabdiqani ayaa waxa uu qaatay taleefankiisa si uu u waco jacaylkiisa Nimco oo uu ku ogaa inay cadho ku kala tageen kuna kala maqan yihiin. nasiib darro Nimco kama aysan qaban taleefanka Cabdiqani wuxuuna wacay muddo badan laakiin Nimco isku meedayn inay ka qabto taleefanka Cabdiqani waa marxalad xun ku jira oo ay kala guureen inuu waxna cuno waxna cabo ilintiisana aad moodo qasabad biyo ah oo la furay ayaa waxa niyadiisa ku soo dhacay inuu waco Degan oo ah Nimco walaasheed. hase ahaatee horaa loo yiri wixii aanad filayn baa ileen ka fajiciye. Cabdiqani waxa uu Degan kala kulmay wax aanu ka filayn oo ahaa maxaa doonaysaa maxaad naga rabtaa ma inaad mar kale walaashii qalbigeeda dhaawac gaarsiiso ayaad rabtaa naga danayso oo hana soo wicin waxa kan qalbi adaga. taleefanka waa lagu jaray Cabdiqani waxa uu galay marxalad ka sii darantii hore. hadaydii aaminta haween baan ku arxami hadayna xayaanino ilmay orayldhiga hadaydii aaminta haween baan ku arxami hadayna xayaanino ilmay hore ildhigan. Cabdiqani oo aan niyadiisu fadhiin ayaa guriga ka soo baxay waxa uu u soo dhaqaaqay dhinaca iyo suuqa isagoo isla hadlaya oo warwariyo walbahaar qalbigiisa buuxiyay. Cabdiqani maxaa ku dhacay isagoo jidiskeys ah ka gudbaya oo aan nafsadiisa war ka hayn jacaylkiisa dartii kana fikiraya qaladka uu geystay jacaylkiisa Nimco ayaa waxa si kadis ah oo lama filaan ah ugu soo laabay gooladii uu marayay gaari wada xamuul oo waa uu jiray Cabdiqani. Nimco oo aan dhuunigeeda waxba ka daadagin maalmaha ay kala maqan yihiin jacaylkeeda Cabdiqani oo waxa ay la dhuubatay jacayl iyo xusuuso qalbigeeda ku soo laabanaya. iyo maalmihii wacnaa ay soo wada qaateen Cabdiqani iyo waqtigii wacnaa ay soo wada mareen goobihii cagaarnaa ee la tagi jiray iyo hoteeladii ay ku caawin jireen habeenkii. indhihiyo qalbiga deeqday baan kuba ilaa weyne adduunyada kuma doorsadeen aragtidaadii oo aya ii malaha nololi adilaanta oo aya ii malaha nololi adilaanta. ilmadii xaaska